muddadii ay xukuumadda danqaran xilka haysay waxaa si weyn u kordhay miisaaniyadda guud ee ciidanka qalabka sida. miisaaniyadda ciidanka xoogga dalku waxay ahayd 93 milyan markii xukuumaddani ay xilka la wareegtay, halka ay maanta ka tahay 163.4 milyan oo u dhiganta korodh ah 76%. markii dawladdu xilka la wareegtay kharashka guud ee ciidanka qalabka sida wuxuu ahaa 166 milyan, halka maanta uu ka yahay 253 milyan oo dollarka Mareykanka ah, taas oo ah korodhan 52.4%. waxa ayana xusid mudan in muddada xukuumaddani xilka haysay aan iyana marnaba xuquuqdaas ciidanku maalinna dib u dhicin, bil kastana si joogto ah loo bixinayay. anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda xuska sanad guurada 65aad ee ciidanka xoogga, waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin iyo duco u diro ciidanka xoogga ee ku hawlan dadaalada dib u xoreynta ah ee khawaarijta lagu ciribtirayo. waxaan leeyahay Allah idinku guuleeyo. hambalyo.